السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله بارك الله فيكم waxaan muuqaalkan idinkugu soo baahinaya waxay tahay intaad eegtaan iska dhaaftaan maaha waxaan idinkugu soo baahinayaa inaad eegtaan ood ka faa'iidaysataan oo aad weliba maxay ahayd oo aad barataan بارك الله فيكم caawa waxaan doonayaa inaan idiin soo baahiyo darsigeeni saddexaad ee kitaabkeeni ahaa almabaadi alfiqiya calaa madhab alimaam shaafici radia allahu canhu darsigeeni caawa wuxuu ku saabsan yahay 4 su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay ma almar'atu alajnabiya su-aasha labaad waxay tahay maada yalzamu almutawadi'u ida araada an yusalli su-aasha saddexaad waxay tahay ma najaasaat tan afraad waxay tahay ma alcawra afartaas su-aalood baan doonayaa caawa inaan idinkaga jawaabo oo aan idinkaga faa'iideeyo su-aasha koowaad waxay tahay ma almar'atu alajnabiya gabadha ajnabiga ah ama ajnabiga kaa ah adiga waa tuma waxa ajnabi kaa ah gabadha aan guurkeeda asbaabtan aan sheegi doono mid kamid a uusan kuu diidin gabadha aan guurkeeda asbaabtan aan sheegi guurkeeda ama gabadha guurkeeda asbaabtan aan sheegi doono mid kamid a uusan kuu diidaynin nasabka kuma diidayo inaad guursato ridaac ama nugmada kuma diiday sidoo kale inaad guursato musaahara xididnimo kuma diiday sidoo kale inaad guursato gabadha aan saddexdaa asbaabood wax haba yaraatee xiriira aydan ka lahayn ayaa ajnabi ka ah adiga laakiin gabadha aad intaasoo dhan xiriir ka tihiin ajnabi kaama aha laakiin gabadha aad inta aan sheegayo aydan wadaagin ayaa ajnabi ka ah nasabnimada ma wadaagtaan musaahara ma idinkama dhexayso oo ridaacna ama nugmana idinkama dhexayso gabadhaas ajnabi ka ah talabaad waxay tahay maada yalzimu almutawadi ila arada an yusalli qofka tukanaya maxaa waajibka ah markuu tukanayo waxaa looga baahan ama laga maarmaan ah qofka markuu tukanayo waxaa laga maarmaan u ah in uu maxay ahayd uu arrimahan aan sheegi doono inuusan inaan laga waayin inaan laga waayin wey marka dahaaratul badan jirkiisa ama inuu nadiif yahay jirkiisa haddii laga waayo nadiifnimadaasi qofkaasi ma tukan karo talabaad waxay tahay in dharkiisuna sidoo kale uu nadiif yahay hadduu dharkiisa nadiif noqon waayo ma tukan karo meesha uu ku tukanayo inay nadiif tahay hadday nadiif noqon weyso sidoo kale ma tukanayo oo salaadiisaasi ma ansaxaysa wey sidoo kale ma najaasaad maxaa nijaasa ah nijaasa sidoo kale waxaasuna inay nijaasada markaa nadiif ka yihiin weye nijaasada intaanan u gudbin sidoo kale satrul cawra cawradiisa qofka inuu qariyo maanta waxaa dhacda rag badan oo masaajidada intay ku tukadaan cawradooda ama ceebtooda xagga dambe ay qaaban tahay maxaana kalifay qofka maryo gagaaban oo markaa dhijisa ayuu soo xiranaya mar allaala markuu rukuucis yiraadana qaybtiisa dambaa banaanaanaysa mar allaala markuu sujuudana qaybtiisa dambaa banaanaanaysa salaadaasi salaaday noqonaysaa waayo salaad qofka muslimka waxaa laga maarmaana inuu cawradiisa asturto waayo waa rugni ka mid a arkaanta salaada sidoo kale macrifatu dukhuuli lwaqt qofka iskama tukan karo ilaa waqtigii salaada la gaaro haddii waqtigii salaada la gaaro qofka uu tukan karaa sidoo kale su-aasha labaad saddexaad aan raba inaan kaaga faa'iideeyo waxay tahay walaalkayga daawanayo ma najaasaad ama walaashayda daawanaysa waxaan kaaga faa'iideynayaa ma najaasa waa maxay najaasa waxaa dam dhiiga walqayxu qayxu waxaa la yidhahdaa waa dheecaan ka yimaada jirka oo xukunka markaa dhiiga oo kale yeelanaya walqayu mataga sidoo kale waa najaaso walkhamru khamrigana waa najaaso weeye walkalbu eygana waa najaaso walkhinziiru danfarkana waa najaaso sidoo kale walbawlu kaadida waa najaaso walqaa'idu saxradana waa najaaso walruuthu والروث لفانا ونجاسة وي سؤال شو قدام بيسوي حتى ما العورة عورته ومحي عورة وحلا يرضى عورة الرجل رجع عورته ذو حي قبل لا مريسا هل كحندورته أما حدنته إلا حدنته إلا وحي كويك تاي جلبها دمر كان عورته ذو حي قبل لا مريسا لبدا ميلود وحن أهين لبدا ميلود عن شيء دون بعد دمر كعورة كأهين لكن جيركو ذا أنت كاره wada cawro wey waayo dumarka wejigeeda iyo gacmaheeda intaa hore cawro ma aha
laakiin wixii jirkeeda inta kale ka soo haray waa cawro. maca dalika dumarka waxaan ka codsanayaa walaaladay ama walaalkayga i daawanaya ama walaashay i daawanaysa waxaan ka codsanayaa inaan cawrada asturno markaan salaada tukanayno, inaan cawradeena qarino markasta. waayo ilaahay baana faray. ilaahay subxaanahu watacaala waa allihii adiga ku abuurtay, anigay abuurtay, kitaabkan qur-aanka aan akhrisanayno nagu soo dejiyey, dhulkan aan ku noolnahay na siiyey, cirkan aan ku maxay arsaaqada ka sugayna iska leh. allahaasaa markaa nagu waajibiyey. baaraka allahu fiikum. cawradana asturno, fideogana sheer gareeya, walaaladiin la wadaaga, cawradana aan asturno siiba xilliga salaada markaan tukanayno. haddii kale camalkii ugu ficnaa acmaasha oo dhan baan dayacaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala nama dayace aan cawrada ilaalino insha allah. baaraka allahu fiikum. camalkeena yuusan khasaarin, aan cawrada asturno. baaraka allahu fiikum. fideogan sheer gareeya, walaaladiin la wadaaga. baaraka allahu fiikum. ilaahay subxaanahu watacaala ajir badan buu idiin siinayaa, ajir badan baad ka helaysaan daawashada iyo barashada diintiina insha allah. sheer gareeya, walaaladiin la wadaaga. baaraka allahu fiikum. wajazaakum allahu khayra. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.